ciidamada amisom ee ku sugan dalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa maanta inay iskuulka hirgeliyeen degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Fafaahin umuurtaasi ku saabsan waxa inoo soo diray Cabduqaadir Jijiile. waxa ay ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ay ka hirgeliyeen degmada wadajir ee magaalada Muqdisho iskool weyn ay ugu talagaleen dhallaanka Soomaaliyeed ee muddadii ay burburtay dawladii dhexe ee ka talinaysay dalka ay waxbarasho la'aanta ku haysay gudaha dalka Soomaaliya. ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u jooga Muqdisho maanta waxa ay warbaahinta u soo bandhigeen qaabkii ay u dhiseen iskuulkii hore ee Xaaji Maxamuud Hilowle ee ku yaala degmada wadajir ee magaalada Muqdisho isla markaasina uu saameeyay burburkii dalka ka dhacay. مسؤولين isugu jirtay wasaaradda adeegga bulshada xukuumadda Soomaaliya iyo maamulka degmada wadajir ayaa ka soo qayb galay wareejinta iskuulka Xaaji Maxamuud Hilowle oo ay dhismihiisu hirgelinayeen ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya waxaana halkaas ka hadlay mas'uuliyiintii goobta soo gaartay. waxa ilaahay mahaddas kale waxa loo hirgeliyay in ay noo sameeyaan amisom oo muddo dheer arrinkan ka howlana si qurux badan runtii noogu dhisay marka mahad gaar ah ayaan u soo jeedinaynaa amisom oo xiriir gaar ah la leh wasaaradda horumarinta adeegga bulshada gaar ahaan agaasinka shaqada dhalinyarada iyo isboortiga oo waxaan ku raaa iskoolka hadda arkaysaan macadka hadda arkaysaan ka sokow noo dayactiray waxaan ku raaa guriga shaqaalaha oo asagana loogu talagalay inuu noqdo xarunta tababarka shaqaalaha Soomaaliyeed marka taa iyada ahna waa ugu mahad celinayna yani amisom waxay noo hirgelisay ka wasaarad ahaan 122 shaqaale ah hal mar inta noo qaaday noogu soo tababartay Bujumbura ay noo soo celisay. sarkaal ka socday ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u jooga Muqdisho ayaa isna waxa uu ka warbixiyay inta uu ka kooban yahay dhismaha iskuulkan cusub ee laga hirgeliyay degmada wadajir ee magaalada Muqdisho. I'm in charge of civil affairs in amisom. Here today we have come to inspect a school in waxaan u qaabilsanahay ciidamada amisom arrimaha bulshada ee magaalada Muqdisho waxaan halkaan u imid in aan ka qayb qaato furitaanka iskuulkan cusub ay dhistay ciidamada amisom. halkani waxa uu ka kooban yahay 18 galaas waxa la doonayaa in ay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga ah shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Our intent is to have the people of Somali have their children come to school for the future of this nation. The building of the facility sida iskuulaadka waxbarashada oo ah aasaaska dhismaha nolosha qofka bini'aadamka ah ayaa hada hirgelintiisa ku soo badanayso caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaase la garanaynin dhalinta aan awoodin bixinta lacagta fiiga in ay helayaan waxbarasho lacag la'aan ah. Cabduqaadir Jijiile Royal TV Muqdisho.